الله عز وجل سبحانه وتعالى ينقلديس كقليريينينا quruxdan inaga muuqata wadajirkan inaga muuqda midnimadan inaga muuqda quluubteenna iyo caloosheennan isku mid ah dhaqaalo kastaynu ku bixinno iyo dadaal kastaynu gelinno haddaan ilaahay ina siin ma aynaan heleen allah caza wajalla yaynu mahadinaynaa mahad dhammaanteed waxaynu mahadinaynaa mahad u qallanta awooddiisa iyo quwaddiisa iyo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa waxaynu mahadinaynaa inta uu ka raallin noqonayo waxaynu mahadinaynaa marka uu raallin noqdo dabadeed alxamdu lilah cadada khalqihi wa ridaa'a nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih ilaahu noo siyaadi wanaaggan aadna siisay ilaahu ha naga nusqaamin ilaahu dhibaato iyo tafaruq iyo kala tag ha nooga dambaysiin yaa rabbaalcaalamiin ilaahay saasaynu ka baryaynaa waxaan mahadinayaa soo dhowaynta qiimaha leh ee degmada baaraan ay nagu soo dhowaysay jazaakum allahu khayra jaza allah idin soo dhoweeyo allah idin jeclaado allah idin inta xanuunsanaysa xanuunka ha kaga dulqaado inta qaamaysan qaanta ha kaga qaado ha kaga bixiyo qof walba oo idinka mid ah waxa uu caloosha ka jecel yahay ee wanaagsan allaha ku siiyo wixii dhibaato ah ee uu ka baqayo iyo wal iyo kurbana allaha kaga dulqaado ilaahay saasaan idiin weydiinaynaa ilaahay ha idiin soo dhoweeye sidaad noo soo dhowayseen laba kelmadood baan insha allahu tacaalaa intaa raacinayaa oo farriin aan isleeyahay laascaanood buuq iyo qaylo iyo way u badan tahay inay intan ka badnaato dadka waanaan jaanis u helin inaan halkan u mariyo insha allahu tacaalaa soomaalidu waxay tidhaahdaa dibiga doolla jooga dhagtiisuna wax xun ma maqasho ishiisuna waxsan ma aragto waxay uga jeedaan waxaa la yidhaahdaa habeenkaasoo dhan lo'da la waraabinayo waxaa laga hadlaa dibigu wuxuu maqlaa iyadoo la leeyahay lo'da ha loo roonaado eelka hore ha loogu tago yeelka yaan laga kala tegin ilaahay hadduu kuu roon yahay ha la isla sugooyeyn kala dareerin marka ceelka la tagana dibiga sida loo geesgaraacayo inta irmaan la waraabinayo oo ilaahay hadduu ku roon weylaha la waraabinayo isaga la geesgaraacayo yaa mar dambe biyaha lagu sii daaya marka biyaha lagu sii daayo wuxuu arkaa lo'diiyoo dareertay marna biyuhu eegaa marna wuxuu eegaa ilaahay hadduu kuu roon yahay lo'diiyoo dareertay isagoo weli biyihii aan ka qaraac ka ah yuu ka daba dareeraa lo'dii uu yidhaahdaa war wixii xale la sheegaye wanaagsanaa lalahaa lo'da ha laysla sugo ha la wada waraabiyo biyaha laga soo ha qabtiro xaggay ku dambaysay waakaasaa la yidhaahdaa dhegtiisuna waxsan bay maqashaa ishiisuna waxsan ma aragto innaga haddeer waxaa inoola mid ah beesha reer isxisaaq wax wanaagsan baynu ka maqlaynaa waa walaalahayo dhulbahante waa deriskayo waa kan dhibaato lama rabno waxaan wax xun ahaynna kama aragno waxaan wax xun ahayn oo dhulkiinnaannu leennahay oo ma tashan karaysaan oo masiirkiinnu gacantayadu ku jiraa waxaan ahayna kama aragno marka waxaannu leennahay iswaafajiya hadalkiinna iyo ficilkiinna dalkan dhulbahante annagaa iska leh annagaa leh isaaqna lalama laha dalkayaga iyo deegaankayaga iyo masiirkayaga hargaysa looga talin maayo nimaan annaga ahayna ka talin maayo ilaahay hadduu kuu roon yahay ingiriisna deegaankayaga idinma siin karo dalkani waa dal dhulbahantaa taladiisa iyo maamulkiisa yeelanaya waxaan maqlayay shalay nin ina waran caddan la yidhaahdo oo le garaajaamacow wixii aabbahaa 60kii diiday
aanu la'yaa garaad ka nidhi maanta kaa yeeli mayno waxaan leeyahay ina waran caddow adiyo tolkaa waxaan idin leeyahay wixii aad aabbahay lixdankii ka diiddeene la'yaad garaad ka tidhaahdeen maanta anaa idinku leh la'yaa isaaq anaa idinku leh soomaali kala go'aysaa ma jirto waddanka iyagu ka go'i maayo soomaaliya soomaali baannu nahay soomaali baannu ahaan doonnaa dhiiggii awowyaashayo bilaashu muusan daadan dhiiggii awowyaashayo bilaashu muusan daadan wuxuu u daatay waxay ahayd in ay helaan jamhuuriyad soomaaliyeed oo mid ah kuwii maqnaa baannu doonaynaayo kuwo kala goyn mayno waxaan maqlayaa kuwo ku calool ilaahay hadduu kuu roon yahay weli ku maararoobaya wada hadal iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay wax aan soconayn waxay soomaalidu tidhaahdaa dhac guudkii lama hadlo inta isaaq dhacan naga hayo ee deegaanka yaga uu leeyahay annagaa iska leh lama hadlayno maalinta ay ka baxaan maalinta ay deegaanka yaga ka baxaan daris walaalo ah baannu noqonaynaa weliba waxaan leeyahay si wanaag loo helo si aannu idiin kala reebno culimo haddaad leedihiin jilibbo iyo qoysas haddaad leedihiin iskala reeba idinku ciddiinna tiraahda dhulbahanta dhulkiisa isagaa iska leh masiirkiisa isagaa iska leh taladiisa isagaa iska leh waannu ka reebaynaa inta kale waannu ka reebaynaa ma aqaan sidaad u kala taqaanaan reer sheekh isxaaq muggiisu waa labo waa habar xabuusheed iyo habar magaado habar xabuusheed mar bay kursiga ku fadhiday oo isaaqa intiisa kale waxay ku leedahay war dhulbahante annagaa u talin jirray waana qali jirray waana qarin jirray ma qaylana kama yeedhi jirine habar magaadlow dhibaatada idinkaa keenay habar magaadla dhexdoodana waxay leeyihiin qoladii habar yoonis iyo garxajiska ahaa war haddii annaga naloo dooran lahaa meesha isaaq baanuga ka dhigi lahayn beri hore ee niman beeraley yaa helay waxaannu leenahay haddii habar jecla ay tiraahdo war annagaa naqaana habar jeclaa inoogu badisee war annagaa naqaanoo nimanka dhul badan baynuba ka haynaa dhulkooda kale aynu faraha uga qaadno habar jecla waa ka reebanaynaa inta kale habar yoonisoo haddeer laba gumeeyey oo isaaqnimo lagu gumeeyey hadday tiraahdo war inta kale inoo daayana waa ka reebanaynaa habar awal isma dhaqaanno waa isbaranaynaa habar awal waa isbaranaynaa meelaan halkan ka fogayn yaan 2015 aan ka idhi markaan idinku lahaa gudnimo ninna kula tartami maayo waxaan idinku idhi marka ay isaaq arkaan maamulka isaaq marka uu arko dhulbahante israacay inuu isku diru ka shaqeeya waad maqlayseen ina mahadgeeso buuhoodlaa laga qafaashay laba ujeeddaa laga lahaa labada ujeeddee laga lahaa waa in axmed garaad iyo bahara sama la isku diro waa filimnaynu hore u daawannay miyaynu ka falcelinaynaa cidda ka dambaysay baynu naqaannaa dhagaxa cidda soo tuurtay baynu naqaannaa oo la xisaabtami doonnaa insha allahu tacaala ciddaasaynu la xisaabtami doonnaa ta kale waxay rabaan inay wiilal yaryar intay qafaashaan oo toojargareeyaan ay ku yidhaahdaan sheegta wixii laascaanood ka dhacay cidda dishay dadkii laascaanood ku dhintay waanu naqaannaa naloo sheegi maayo isaaq baa dilay ciidanka isaaq baa dilay maamulka isaaq baa dilay insha allahu tabaarakta wa tacaalaa shirka laascaanood ka furmi doona waxaa ka soo baxaya nin ragina waa og yahay nacasna loo sheegi maayo waa og yahay nacasna loo sheegi maayo ilaahay quluubteenna ha mideeyo ilaahay tolkaa wada deggan ee walaalaha ah ee dhulbahante iyo fiqishinni iyo inta kale la degta allah ha mideeyo
laba talaba tiiroon allah ina waafajiyo boggeenna burcad allah isu mariyo waxa khayrku ku jira ilaah baa inoo garanaya allah ina waafajiyo wixii shar iyo dhibaato iyo shirki inoogu jiro allah inaga xijaabo allah inaga xijaabo allah inaga xijaabo ilaahay wanaaggan xumaan inoogama dambaysiiyo ilaahay inoogama dambaysiiyo اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاتحة.